maxkamadda dastuuriga ah ee wadanka Guinea ayaa xaqiijisay in doorashadii ka dhacday aakhirkii bishii aan soo dhaafnay wadanka Guinea uu ku guuleystay madaxweynaha talada haya Alpha Condé sida lagu sheegay war ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Guinea. doorashadaasi ayaa waxaa si weyn u diiday mucaaradka la tartamayay madaxweyne Alpha iyagoo sheegay in ay sharci darro tahay in mar saddexaad uu tartamo madaxweynaha wadanka Guinea. madaxweyne Alpha Condé maadaama laba mar oo hore uu si weyn ugu guuleystay doorashooyinka dhacay wadankaas waxa imaanaysa iyada oo dabayaaqadii sanadkii aan ka soo gudubnay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka u yaala wadanka Guinea. madaxweyne Alpha oo hadda da'diisu ay tahay 82 sano jir ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii wadanka Guinea ka dhacday 18 bishii Oktoobar ee aan ka soo gudubnay sida ay maxkamadda shaaca ka qaaday. inkastoo markii lagu dhawaaqay guusha Alpha Condé ay dalkaasi dibadbaxyo waaweyn oo ay dad ku dhinteen ay ka dhaceen. ciidamada ammaanka dalkaas ayaana ugu dambeyntii soo afmeeray dibadbaxyaasha ka dhanka ahaa taliska madaxweyne Alpha. siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan isla markaana ka soo jeeda mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi ugu waaweyn oo la yiraahdo Selo Dalini uu sheegay in doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Alpha ay tahay mid aanay waxba ka jirin iyagoo oo sheegay in madaxweynaha dalkaasi uusan doorashada ku guuleysan balse la musuqmaasuqay. siyaasiga mucaaradka ah ee Diallo oo horey dalkaasi ra'iisul wasaare ugu soo noqday ayaa waxa uu hadda si weyn uga cabanaya ku takrifalka awoodeed ee ka imaanaysa madaxweynaha la sheegay in doorashada uu ku guuleystay Alpha Condé iyagoo oo mucaaradkana ugu dambeyntii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaas dacwad ka gudbiyay doorashadii ka dhacday dalkaas. inkastoo warkii ugu dambeeyay maxkamaddu ay ku sheegtay in doorashada uu si rasmi ah ugu guuleystay madaxweynihii dalkaas Alpha Condé wax ka badan 59.5%. lama oga waxa ay hadda mucaarad ka sameyn doonaan wali siyaasiyiinta mucaaradka ah aanay warbaahinta la hadlin. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.